wafdidii uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Jaamac Axmed Cabdiraxmaan ee ku sugnaa magaalada Ceergaabo ayaa saaka kormeer ku sameeyay xabsiyada dhexe ee magaalada Ceergaabo saldhigga ciidamada booliiska maxkamadaha gobolka iyo xafiiska wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Ceergaabo waxaana intuu kormeerkaasi soconayay agaasimuhu ku wareejiyay daawooyin mas'uuliyiinta xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta gobolka Sanaag isagoo sidoo kalena kulamo la yeeshay mas'uuliyiinta bahda cadaaladda ee gobolkaasi kadib kormeerkaasi markuu soo dhamaaday wuxuu agaasimuhu warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaag waxaana hadaladiisi maanta waxaan ka bilownay markaa kormeerkii gobolka Sanaag qaasatan degmada Ceergaabo jeelasha xabsiyada oo aan u xogaal eegaynay dawooyinna ku wareejinaynay iyo saldhigyada waanu iyana carruurta ku xidhan iyo xaaladda guudba eegaynay xafiiska iyana wasaaradda ku leedahay gobolka Sanaag waanu isna u xogaal noqonaya shaqadiisa kormeerka guud oo aanu bahda cadaaladda oo dhan aynu igula socdeen wafdi badan oo isku jira wasaaradda iyo ka kooban iyo hay'ado caalami ahba ayaan ku jiray marka taasaan maanta u joognaa gobolka si fiican buu noogu dhacay si fiican baan lagu soo dhaweeyay xaaladii aan u soconayna xaalad fiican oo positive ah ayaan ugu nimi haday tahay xabsiga gobolka aad iyo aad baan nimanka ugu mahadnaqayaa Jaamac Axmed Cabdiraxmaan agaasimaha wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxa uu ka hadlay qaabka ay u shaqeeyaan xabsiyada iyo saldhigyada magaalada Ceergaabo ragga jooga iyo maxaabiista ku xidhan aanay badnayn gobolka inta waa uga mahadnaqayaa xagga booliiska waanu u tagnay saldhigyada waanu wada maray saldhigana iyana arrin positive aan kula kulanay xaalad wanaagsan dad badan ba kuma xidhna kiisaska gobolku aad bay u yar yihiin markaan xaaladii wareysanay gobolku sidiisa kale waa nabadgeliyo wax dhibi kama jiraan xaalad aanu u soconayna xaaladii si wanaagsan baanu ula kulanay wada shaqeyn wanaagsan xeelanta kale waanu is wada aragnayna maxkamadaha waan soo ardamba ka soo baxay marka bahdii cadaaladda oo dhan xaalad positive ah gobolkuna sidiisa kale uu nabadgeliyo annuna shaqada aanu socno waa shaqadii iska wasaaradda cadaaladdu sameyn jirtay ee kormeerkeedii guud way samaysaa waxaan u sameynaa bil saddexdii biloodba mar bay samaysaa gobolladoo dhan baa la maraa marka iminkana galbeedku waa noo harsan yahay waanu ku sii soconaa waana shaqada wasaaraddu u xil saaran tahay inaanu xogogaal u noqono cadaaladda maadaama gobolladii ugu fogaa yihiin Sanaag iyo Sool ay bari iyagu ugu soo xigaan waxaanu isniir horta bariga fog ka soo bilaaba xaalad positive aan kula kulanay waxaanu aad iyo aad halka u bogaadilayaa maxkamadaha gobolka oo aanu ku aragnay cadaaladii iyo sinaan warbixintii aanu ka helay hadaanu populationka dadka wareysan aanu dhaxgalay iyo guud ahaanba iyo iyagoo aanu wareysanayba aanu kula kulanay xaalad aad iyo aad u wanaagsan Barkhad Maxamuud Gedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo.